waxaan ku tanaasulay markii ay gaartay meeshii ugu dambeysay oo ah in la kala tago oo ah in la rajo xumeeyo ama dadka rajo xun la geliyo waxa ii soo baxday labo inaan kala doorto waxay kala yihiin in dalku uu kala tago oo wada jirkeenu uu lumo anoo ku adkeysanahay qof iyo codkii maxaa yeelay sharci baan ku taagnahay dastuur yaan ku taagnahay iyaguna ay yiraahdaan ka qayb gali mayno electionka oo waa qaadacnay waa boycott galeen macnaheedu waxay tahay Somaliland de awal bay gaar u taagneed markaana inaan waayo labadooda kaliya ma ahayn shantoodaba waa isla socdeen aanin sheegay runtii waxa soo baxday marka aniga shaqada la ii idmaday aan u dhaartay oo la ii doortay inay tahay inaan dalka markii ugu horeysa isku hayo inaan ilaaliyo wada jirka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed markaas dawladnimo iyo doorasho laga hadli karaa laakiin haddii dowlad goboleedyadii qaar ay leeyihiin anagu ma galeeno waxaan ka shaqeynay kala qaybin yaan ka shaqeynay tan labaad oo aan u tanaasulay waxay tahay shisheeye inuu soo faragashado uu soo farageliyo inaan anagu waxayna ha xumaato ha samaato anagu aan gaarno go'aankeeda mas'uuliyadeedana aan qaadano laakiin marnaba shisheeye inuu soo dhaxgelin oo suukaa soo jijeedin taasna inaan ka fogaano waxay ii keentay marka inaan qaato tanaasulka marka maxaa yeelay inaan dalka isku hayaa muhiim ah marka ugu horeysa uusan kala tagin waana runtii waxyaabihii muddooyinkii la soo dhaafay culayskii dalkan saarnaa yahay dalkan in la kala fogeeyo dadkiisa la isku diro shisheeye uu ku dhex jiro dhibaato laga dhex abuuro xaqiiqatan waxaana ka shaqeynayay dalal shisheeye iyo shakhsiyaad dana gaar leh ha ahaadaan Soomaali ama ha ahaadaan shisheeye oo xaqiiqo ah muddooyinkii aan soo marnay intay rabta ha ahaato ummadda Soomaaliyeed ma aha wax ka yimid wixii dhibaato oo ka dhex dhacay waxay ahayd wax kor looga keenay dalalkaas aan sheegayana danay leeyihiin waxay tahay annagu in aan isku mashquulsannahay xasilooni darro siyaasadeed ee haysato dagaalo dhexdeena ay ka socdaan